faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iska horimaad shalay gelinkii dambe magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaar ahaan nawaaxiga xerada BSF ku dhex maray ciidanka BSF ee sheegay inay ka tirsan yihiin safka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland si gaar ah ciidanka BMPF waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay qasaaraha iska horimaadkaasi uu sababay xaaladda guud ee magaalada Boosaaso si la mid ah dhaqdhaqaaqyada ka soconaya magaalada Gaalkacyo ayaan tabintan kula wadaagi doonaa soo dhaw muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiibo haddii aad horey noola joogto ood ku mahadsantahay haddii aad nala joogin nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee markasta hela wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ku waramaya in shalay gelinkii dambe iska horimaad uu dhex maray ciidamada markaasi sheegay inay ku biireen safka dowladda federaalka Soomaaliya ee PSF iyo sidoo kale ciidanka ammaanka ee sida gaarka u tababaran ee dowlad goboleedka Puntland ee PMPF iska horimaadkan ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ciidanka PMPF oo muddooyinkii ugu dambeeyay fariisimo ka sameysanayeen nawaaxiga xerada ciidanka BSF ay ku dhawaadeen xerada BSF isla markaana ciidanka BSF ayaa rasaas wada kaga qaaday ciidamadii ku durkay ama markaasi ku dhawaaday xeradooda waxaana iska horimaadkaasi uu sababay khasaare dhimasho oo soo gaaray hal qof oo shacab ah ilaa hadda ma jirto faahfaahin kale oo ka baxsan tirada khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi uu sababay ama iska horimaadkii koobnaa laakiin xogaha hordhaca ayaa sheegaya in hal qof oo rayid ah uu ku geeriyooday rasaasta labada dhinac ay isweydaarsadeen xaaladda guud ayaa u muuqata hadda inay degan tahay ilaa haddana ma jirto markaasi wax dhaqdhaqaaq intaasi ka baxsan oo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ciidanka BMPF ayaa iyagu markaasi degan meel aan ka fogeyn xerada BSF waxaana ciidanka BSF ay wacad ku mareen haddii lagu soo duulo xeradooda inay isdifaaci doonaan isla markaana tallaabo adag oo jawaaba ay bixin doonaan maalmo ka hor ciidanka BSF iyo sidoo kale ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ku dagaalamay deegaanka laag ee hoos yimaada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana halkaasi khasaare xooggan ka soo gaaray ciidanka BSF oo laga furtay in ka badan 9 gaari sidoo kalena maxaabiis ka badan 60 askari markaasi looga qabtay ciidanka BSF waxa ay sheegeen inaysan marnaba ka tanaasuli doonin joogitaankooda gudaha Boosaaso cid kasta oo xiradooda u soo dhaqaaqdan ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dhinaca magaalada Gaalkacyo iyana xiisad ayaa markaasi laga soo sheegaya xiradii BSF ee magaalada Gaalkacyo ay warar ku tilmaamayaan in fariisimo ay ka dul sameysteen ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland si gaar ah ciidankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugnaa deegaanadaasi oo dhawaan sheegay inay ku biireen safka dowladda ayaa cabasho ka muujiyay godoominta ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland ay ku sameeyeen waxaana ay sheegeen haddii laga dul qaadi waayo godoominta inay iyaguna dhankooda qaadi doonaan tallaabooyin isdifaaca oo ay kaga hortagayaan dandaansiga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku hayo gudaha xaaladda Puntland ayaa u muuqatay inay cakiran tahay waxaana tani ay markaasi u muuqataa Siciid uu doonayo inuu soo gabagabeeyo ciidanka federaalka ee ku sugan gudaha deegaanada Puntland koorkooda bisha August sida xogaha aynu ku helino xerooyinka BSF ee Boosaaso sidoo kale Gaalkacyo ayaa gabi ahaanba waxa ay wajahayaan go'doon dhameystiran oo kaga imaanaya ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland waxaana qorshaha lagu sheegay mid la doonayo in cadaadiska lagu kordhiyo ciidamada kala duwan ee sheegay inay ku biireen safka dowladda federaalka Soomaaliya ana Puntland ay doonaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga taqlusto joogitaanka ciidanka safka federaalka ku biiray ee ku sugan gudaha deegaanadeeda maadaama ay u aragto inay yihiin caqabad kuwa amniga iyo xasiloonida mandiqada Puntland dhawaan markii ciidamada PSF iyo sidoo kale kuwa ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland dagaalka ku dhex maray deegaanka laag ee duleedka magaalada Boosaaso dad badan ayaa ka cabsi qabay in dagaalku halkaasi ka ballaar laakiin waxaad moodaa in xaaladdu ay si markaasi tartiib ah ay u degtay isla markaana hadda maamulka Siciidani uu doonayo soo gabagabaynta inta ka hartay ciidanka federaalka ee ku sugan gudaha deegaanadaas aragtidaada qaybta faalada ku dhiibo ma ku guuleysan doona Siciid inuu soo gabagabeeyo ciidanka federaalka